Van Dijk oo shaaciyay hal arrin oo uu aad uga carooday oo ay sameeyeen taageerayaasha kulankii Crystal Palace. Kabtanka Liverpool Virgil van Dijk ayaa sheegay inuu ka niyadjabay in daqiiqadii aamusnaanta ee loo qorsheeyay xusuusta Diogo Jota loo joojiyay dhibaato ay sameeyeen taageerayaal ka mid ahaa kuwii joogay Wembley. Liverpool ayaa Axaddii la ciyaartay Crystal Palace kulankii Community Shield-ka waxaana lagu kala baxay rigooro 3-2 kadib markii waqtigii caadiga ahaa ay ku soo dhamaatay barbardhac 2-2. Aamusnaanta ayaa lagu xuseeyay Jota iyo walaalkiisa Andre Silva kuwaasi oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waqooyiga Spain Khamiistii 3 Luulyo. Hase yeeshee waxaa lagu qasbanaaday in la joojiyo ciyaarta kadib markii taageerayaal ka tirsan Palace ay carqaladeeyeen taasoo keentay in taageerayaasha Liverpool ay qeyliyaan si ay uga jawaabaan. Van Dijk ayaa yiri, "Haa, waan ka niyadjabay. Taasi waa wax kaliya ee aan sheegi karo. Ma garanayo cidda samaysay, laakiin waxaa jiray dad badan oo isku dayay inay aamusiyaan xaaladda, balse sida muuqata taasi waxuma tarin." Wuxuu intaas ku daray, "Waa sida ay tahay ma awoodid inaad xakamayso inta taageere ay joogto garoonka. Miyaad aamusin kartaa 80,000 oo qof oo garoonka joogta? Marka waa niyadjab in sidaas la maqlo. Balse haddii qofkaasi ama dadkaasi ay gurigooda ku laabtaan oo ay ku faraxsan yihiin waxa ay sameeyeen, markaas waa arrin naxdin leh." Warbixintaasina waxay qayb ka ahayd barnaamijkeennii Bandhiga Ciyaaraha oo aan mar walba uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalka nala soo gaarta ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.